manta ومالي وين manta 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 مدحين بناني manta 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 ومالي وين manta 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 مدحين بناني manta 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 ومالي وين manta 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 مدحين بناني manta 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 يا مهد إلهي manta 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 تدكي مدوي manta 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 ومالي وين manta 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 مدحين بناني manta 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 ومالي وين manta 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 مدحين بناني manta manta markii dhulkeena maanta manta 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 lama marin karaayo maanta manta manta waa maalin weyne maanta manta manta madaxiin banaani maanta manta manta waa maalin weyne maanta manta manta madaxiin dhammaan marti sharafta dhalinyarada bahdii hore isboortiga raggii isboortiga magaca Soomaaliyeed ku lahaa iyo dhammaan reer Stockholm waxaan leeyahay ku soo dhawaada tournamentiga suuqii ay sanad walba qaban qaadiso oo maanta inoo bilaabanayo taariikhduna ay tahay 12 Juulaay 2010 soo dhawaada ayaa waxaan idin leeyahay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay kooxaha marti sharafta mataqaanaa madaxdii ama dadkii hore qabiilada kooxaha isboortiga dhammaantiin waa sugabta maastii Zuki runtii aad iyo aad ayay mahadsan tahay fursadda intiisana kala soo qayb galnay iyo soo dhaweynta soo dhaweyn waxay aad iyo aad ugu baasiyiin qabanqaabada iyo qaabka ay u abaabuleen tartankan quruxdan samarka waxaa leenahay hambalyo waana daashan meesha kasii wada ciyaartoyda iyo waxaa kale kolley baa raggii hore la dardaarmay iyo madaxda kooxaha wadata in ay discibliin iyo ciyaar wanaagsan muujiyaan fair play ay sameeyaan runtii ciyaartana almost waa furantay waana aad iyo aad ugu faraxsanahay waa ii farax inaan arko reer Sweden oo ku abtirsanayay magacii isboortiga ayagoo mid ah ayagoo isla fadhiyo ayagoo isla sheekaysanayo waa mahad ilaahay aad u mahadsanyihiin sida sharafta leh ay noogu marti qaadeen halkan waagii aan ciyaari jiray waan nacbaan jirnay in khudbada ay dheeraato ciyaaraha markii la bilaabayo kulli dadweynaha sidaas oo kale ay yihiin sidaas darteed waxaan la dardaarmayaa ciyaartoyda iyo madaxda wadato in la ilaaliyo disciplineka oo la ismaqlo ciyaartoydan lagu dhiirigeliyo sida wanaagsan ama fal fiican waan ugu faraxsanahay sida quruxsan ay u agaasimeen Suuki iyo sida maamulka Suuki soo dhaweyntiisa wanaagsan iyo qiimeynta maaragtay ee sportska maanta yani sida horumar kale ay Anders Karlberg och här representerar Socialdemokraterna ikväll, men jag har också en bakgrund som grundare av Fryshuset. Jag tycker det är fantastiskt att se den somaliska flaggan här bredvid den svenska flaggan. Därför att Somalia är ett fädernesland, men den svenska flaggan är vårt gemensamma fosterland. Assalamu alaikum.
Det är naturligtvis en stor ära att få stå här framme. Jag heter Mehmet Kaplan, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Bor här på Järvafältet, tidigare Rinkeby, nu i Husby på andra sidan. Och det är naturligtvis en fantastisk möjlighet att kunna samlas här kring en idrott. Idrotten för brödrar, idrotten ser till att vi har gemensamma grundförutsättningar. Jag får börja med att tacka så mycket för att vi har blivit inbjudna hit till den här Sueke Cup. Och hälsa alla våra gäster härifrån utlandet och även ni här som kommer ifrån de här stadsdelarna här i Stockholm. Och varmt är det ju nu. Det är därför har det blivit lite senare vad jag förstår. Så det här kommer att bli en fantastisk fotbollsturnering. Och ni har ju följt matcherna som har varit nu i världsmästerskapen med fotbollen nu där Spanien vann sist. Så spännande matcher och jag räknar med att det kommer bli mycket, mycket spännande där när vi ser de här matcherna. Och vi har en pris här, Police the Fair Play Cup. Och det är Suki och polisen som kommer att dela ut det här till de spelarna och som uppträder som föredöme både utanför och lycka till här och att det blir en Fair Play Cup. Polisen och Suki. Varmt välkomna. Spännande matcher. För 12:e året så är jag med här på den här fotbollsturneringen. Och som sagt, ni är så välkomna till Sverige och till Stockholm igen. Vi representeras idag av många partier som representeras här och nu. Och jag tror att vi kan vara överens om och verkligen förstå det här. Att vi behöver alla i samhället för att en fotbollsturnering av det här slaget